kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ciyaartay kulan ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain waxay la ciyaartay kooxda Levante. Qaybta hore ciyaarta ayaa lagu kanaastay 2 gool eber ku hogaaminaysay kooxda Barcelona. Labada gool waxaa dhaliyeen Leo Messi iyo Pedri. Qaybta labaad markii dib isku soo laabtay labada kooxood waxay soo bandhigeen qaab ciyaar aad wanaagsan ayagoo ay sameeyeen fursado badan gool loo fili karay. Kooxda Levante ayaa 2 gool degdeg keentay ciyaarta waxay ka dhigtay 2 gool iyo 2 gool. Goolka saddexaad ee kooxda Barcelona waxaa u dhaliyay laacibkooda Ousmane Dembele. hase yeeshee kooxda Levante ayaa soo barbareysay ciyaarta waxaana ka dhigtay 3 gool iyo 3 gool. Kooxda Barcelona ayaa xalay la gashay kooxda Levante barbardhac ay ku wada heshiiyeen min hal libac ayay wada qaateen. Kooxda Barcelona ayaa hadda soo gashay kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka La Liga dalka Spain 76 dhibcood ayay leedahay. Saaxiibayaal, ciyaarta xalay hadda daabatay maxaa ka qaldanaa in Barcelona ay 2 gool la hormarto laga keenay 2 gool ciyaarta gudaha ay ku soo dhamaato 3 gool iyo 3 gool. Fikirkaada waa inuu muhiim qaladka yaa saaraysa ciyaartii xalay wada ciyaareen kooxaha Barcelona iyo Levante.